madaxda degmada ugu horeeyo gudoomiyaha degmada Axmed Macalin Haruun Yuusuf Colaad Seed gudoomiye ku-xigeenkii Mustafa Axmed Cilmi gudoomiyaha xisbiga degmada Macalin Haruun ee kulmiye Ibrahim Cabdi Caynaashe ururada haweenka nabadgelyada gudoomiyaha nabadgelyada Axmed Garacade dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan maanta waxaan rabaa jaaniskan qiimaha iyo qaayaa badan leeyna saddex qodob uga faa'iideysto qodobka ugu horeeya waa kii nabadgelyo darrada ee mayaamihii dhaweed ee doorashadu ay dhacday meelahan laga sheegi jiray haddaynu reer Macalin Haruun nahay meel aynu aragnay iyadoo wax ka dhacayaan kulli xagga iyo degmada gacan libaax bay u badnaydee reer Macalin Haruun waa nabad qabeen war xun baa suuqa leynoo galiyo waxa la yiri bariga Hargeysa laga mudaharaada taayir laga gubaa waxaana lagu gubayo lagu mudaharaadaya madaxweynaha cusub ee mustaqbalka soo baxayo markaa baynu arkaynay inay guushiisu soo iftiimayso waa Muuse Biixi Cabdi dhibaatada xaafadaha gacan libaax ka dhacaysayna waxa bay u badnaydba dad aan deegaanka Hargeysa hortu ku abtirsan qofku markuu gurigiisa gubayo taayir ku gubayo de waxa way waa qof waalanuun inagu qofka waalan maynaan hayno gurigeena maynaan gubaynay muqaawil meel kale hortu ka yimid ayuunba masiibada dhigayay kiina laga bogsay maantana haddii axsaab tahay haddii mucaarid tahay haddii muxaafid tahayba maanta waxa la isugu soo ururay ninkii la doonayay inuu soo baxo oo hortu soo baxay waana ku Ilaahay qoray waxaan leeyahay waanu ku hambalyeynaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi haddii aanu nahay bariga Hargeysa inagoo deegaanimada ka soku madaxweyne maanta farxad gaar ah anaga noo dheer tahayo haddii xaqii qabyaalada tahayna aadaanu kugu abtirsanaynaa haddii xaqii deegaanimada tahayna aadaanu kugu abtirsanaynaa kulli madaxweynayaal galbeedka Soomaaliland iyo bariga Soomaaliland ka yimaadun baan xukumi jiray mar hadduu maanta madaxweyne reer Maroodi Jeexina xukumayo madaxweyne aad iyo aad baanu kugu hambalyeynaa waanu kugu ducaynaynaa waanu kugu faraxsanahay soo dhaweynaan hore loo arag ba maanta naga muuqato jawigeega iyo dareenkayagaba qodob kalena waan uga faa'iideysanayaa maanta saxaafadda u marinaya madaxweynaha cusub saddex arrimood bay degmada gacan libaax la ciirciiri jirtay mid waxa weeye maamulka dawladda hoose maamulkii dawladda hoose waxaan aad iyo aad hambalyo ugu dirayaa maayarka caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Sulteeko oo noqday mid maamul daadajin iyo degmooyin cusub iyo dayactirkoodii iyo xafiiska quruxda badan inuu maanta fadhino iyo maamulka sidoo inoogu dhisayo iyo sidoo inoogu xidhay hortu Ilaahay baan uga mahadnaqayaa isagana uga mahadnaqayaa mid kalena fariin baan u dirayaa madaxweynaha cusub fariintaan u dirayaa waxa weeye wali madaxweyne dhismihii tiyaatarka warqadii baa dhiban arrintiisii halkii bay taagan tahay xukuumaddii ka horeysay maanta xisbigeena kamid ahaydna 7 sanadood arrintii tiyaatarka nagamay dhamaan wali tiyaatarkii madaxweyne kama naaseexan ciidina fariinta ay may soo farin waxaan leeyahay war hadalkii kaga baxaya markaan noo xasuusnaa haddaanu nahay bariga Hargeysa iyo koonfurta Hargeysa madaxweyne tiyaatarkii wali waa noo qabyo waxa gayagii ku baaqdayna ma jiraan wax nagu maqani ma jiraan haddii aanu nahay bariga iyo koonfurta Hargeysa madaxweyne tiyaatarkii halkii buu taagan yahay bahalka hadalkiisu mar uun hanaga hadhay madaxweyne go'aanka kuugu horeeya ha noqdo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh